السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب القارئة ملك السؤال جوتان. هل كان وكرورة فورستو كمدا قوبها كي كويا لا أورنتي لسه كروا قوبها لوجو تلقلي إن لوجو جمع صدو جوي لوجو قاتو لوجو فكرو وقوب عدلا سدو كلام لوجو بديي درتا هل كان داوديال وحكويا لا إن كبدن طبعا كل أوجيت marka socdaalow meeshan markaad timaado oo socod u timaado ama orod u timaado ama aad u timaado inaad baaskiil ku hayso energy gaar ah ku siinaysaa sirta ugu weyn ee energy ku siinaysa socdaalow waxa qayb ka ah kor uu qabo dadka cadceeda smart kitchen socdaalow cadceeda gabiyahanba smart kitchen sidoo kalena way isku dheelatirantaa mar cadceeda arkaysaa marna ma arkaysid marka taa waxay ka saacidaysaa inaad socod aad iyo aad u badan ee aad soo gasho hadda xilligan socodka bilaabayno ساعات أفريقيا بري واحد تمام الساعة سجالكي يتطور دقيقة إلا هدو إلى هيرالك كنا قصعد كان وحصعنا يا إلا مغربكي أو حلي كان وحويان حلي جدا مركا أن حتى في اللون وسجال ساعة إلا مغربكي صعون ساعة مركا أنتاس وحلي جي أكو أكتر حتى مركا تصبح سوق شو صبح على أقولي أنا اللبيت وانك سوق شو صدق اللبيت وانكي ودم بيننا وحوي ولا قصة على هالكم مركا هالكم وحوي دبيع وين سؤاله صدق كلنا waxyaabo badan ee halkan dadka ka caawisa waxyaabaha ay ka caawiso waxa kamid ah in qofka uusan ka niyad jabin socodka uu ku jiro iyo sidoo kale almiidada iyo dadaalka uu sameeyo aad bay iga gadan tahay halkan waa goobta ugu saacaday socdaalow inaan sidan u ekaado oo nooc calool aan noqdo ka halkan imaanaysa imisa kiilaadeed waxaan ahaa 91 ana waa qof tagay ahayd wala la sheetay ibareys xaalad adag waa socdaalow caafimaadkan u warona dadka Soomaaliyeed socdaal waxa laga kari lahaa mataqaana warkaalaya dhaqaaqa socda oo orda oo naftiina energy geliya sidoo kale waxa way gaala waa laga kari lahaa marka aad bay cajiib u tahay xilli walba inaad soo socotana naftaaday socdaal faa'iidooyinka socodku leeyahay maxaa kamid ah faa'iidooyinka ugu weyn waxa qayb ka ah socdaal horta waxa dhuminaysaa faatiska ugu badan matan ama ciilka ama baruurta ugu badan waxa way la dhumiyaa xilliga socodka sidoo kale in jirkaada uu dheelitirnaado in dheefshiidkaada iyo sidoo kale ragnimadaadana ay kobcaan in hurdada oo waxyaabaha ugu weyn oo qofka uu ku nool yahay ku yaraado maskaxdana ay ugu dugto waad helaysaa oo habeenkii socod badan kuma ogolaanayso socdaal hadaa socoto inaad soo jeedo aniga markaad tusaale ka soo qaato 2 saac ama 3 saac waa ka dhacdaa waa jiifam dantaada ii saamixeenba sidii carruurta ilmaha hadaa soo jeedisna xataa dantaa ii saamixeenin dhabaantii marka wax la heli kara ma ummadeena Soomaaliyeed waxaan ka heli laanahay soo dhaqaaqa oo socda oo orda siyaasadan iyo qurunkan iyo waxyaabaha aad ka sheekeenaysaan iska dhaafa oo caafimaadkiina ka shaqeeya si aad u noqotaan dad caafimaad leh oo welibana la amaana hadda waxaan rabaa inaan abaabulo ciidan abaabulo doona ciidankaasi oo ah walaal iska jira caloosha groupkaasi u shaqeyn doonaan marka waxaan rabnaa socdaal dadkii calool iska jar waa laga kari waayay inaan baadno oo aan soo xirno oo meel ku xirno oo ama halka inaan ku soo xirno aan urursiinaa ma sha Allah mashruucaasna waa mashruuc aan runtii ugu nasteexan doono walaalaheena qaaliga ah waayahay tartiib halkaan markaad timaado oo socodka aad bilowdo tartiibkaada waa iska nasaraysaa maalmaha xaalka uu kugu adag yahay adduunkuna uu jaqo noqdo sidoo kale aad rabto inaad program dhisato ama aad fikirto oo aad qorshihii sanadka waxa qaban lahayd ka fikirto halka imaanaysa kaliya adoo ah waxaan ku weydiin lahaa qofka markuu halkan fadhiisto kala balkawr iyo geedahan uu isku helo socdaalow halkan geedahan marka laga soo tago waxyaabaha ugu weyn mataqaana qof uu raadiyo waa amaanka waay absolutely socdaalow 40 kilomitir waa dhantahay waa amaan ilaahay ma iska leh waa amaan oo waxa waaye wax kugu dhibaya ma lahan sidoo kale waad aragtaa har bay leedahay waa lagu duceystaa goobtan waxa waaye waxaan ku tilmaami karaa jannada yareed ee dunida runtii waxa lagu tilmaamo xitaa waa garan lahay meesha marka timaado socdaal aad iyo aad ba xamaasad iyo waxay ku qabanaysaa energy aad iyo aad u badan wallahi billahi Allah marka imisa kursi oo kale ayaa halkan ayay leedahay wallahi hadda qiyaas ahaan inta aniga aan eegay 40 kilomitir markaan ku soo wareegay aan fiiriyay ugu yaraan waxay leedahay adiga konton way leedahay konton goobood oo lagu nasto sidoo kale musqulihii way leedahay cajiib way meeshan wax walba loo dhameystiro socdaal amnigii حواي هذا مسؤول تاعي هذا وحول بطاي هذا توك دلت هاي مدح إني تماد حتى وشيك دتك مدح إني كل 200 مدح ذا
kenya ugu sareysa iyo madaxda caalamka oo idil waa meesha ay ka duulaan halkan caalamka dadkeena Soomaaliyeed baan kaliya fahansaneen sirta ay leedahay orodka iyo socodka iyo inaad jirka macnaha aad dhaqaajiso sirta ay leedahay annaga un baan fahansaneen cholesterol laba dheh صح سكرت بلايد ولن قرنو دن معناها قرنو دن والله بالله سودال journey-gan ee ah ka jar caloosha walaalka aniga naftirkayga ana iska jaray oo runtii waqtiga soo qaatay hadda cunto iga xaraan ah ma jiraan baastada cunaa bariiskan cunaa digirtan cunaa muufadan cunaa wax walba jibsaa macnaha wax walba cunaa markaan cuno laakiin socdaal lama fadhiisto صح maqaayad intaan tago aan dhaw maanta xasan sheekh muxuu sheegay ya axmed madow intuu ka baxay oo waliba shay cadeysna lagu keeno oo shay cadeysna lii keeno oo sokor ay ka buuxdo haye marka socdaal waxa weeyaan qof hadaad rabto caafimaad qaba ina aragto ya qof dadaalay markuu dadaalay kadib qalalay aniga dadka qaar waxay dhahan maxaa ku galay warfacisa ku dartay maxaa ku galay dhahan aniga waxba igama galin aniga waxa aad iyo aad u xasuustaa markaa sawir galay socdaalo nafta isku dhijinay caloosha celinay billahi alayk hadana tartiibkii waa iska gali kara marka waxa waaye eriyo badan oo dad odayaal ay dhigi jireen waa culusta geesi ka fariisay xataa banooniga xataa macnaa liima xiisi jirin hadana waxa waaye socdaalo banooniga aan bilaabo xilligan ya xilligiisa kala wadi karaa marka neeftii hore ee iga dhuntay aan dib u soo ceshtay kaliya wiligeeba dadka yaqaan way yaqaanaan reer almidaa iska ahaaba laakiin se waxa waaye muddo ka badan 10 sano waa fariistay oo xaalad bima wartan ku jiray marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa waaye inaad socoto dhaqaaqdo waa very important wax la helana ma ahan ilaahayna waafajiyay anaga socdaalo waxaan nimcadan ilaahna waafajiyay dad badan ma dareensano socodka ma dareensano muhiimadu leeyahay faa'iidadu leeyahay wanaagu leeyahay inaad habeenkii 2 saac seexato socdaalo waxa loo dhiga ma lahan wax loo dhiga ma lahan subaxii dadka la xisaabtamaysa dad badan baa hurdalaan haysa moogta dad badan baa hurdalaan haysa xaalka war socdaalo hadana waxyaabaha ugu daran ee dadka dila Soomaaliyeed stress waay qofka Soomaaliga ah meelo badan laga hayaa xaalado badan waa jiraan laakiin si hadaa socoto wallahi dad badan dhaqaatiir waxa ka maqli jiray hormoonka stresska yaraada dad sax waa saxanta yargaas macnaha zero fikra noqonaysa oo stressku ka baxaya hurda helaysa jirkaagu waa dhismaya waxyaabo badan waa la soo koobi karnaa marka insha Allah socdaal waxaan rabaa inaan halkan bahada ka war qofka maanta halkan ku socdo ka war la ilaha illa Allah ka sheekari socdaal marka waxaan rabaa haduu ilaahay raali ka noqdo coach Krama inaan magaciisa uga dishaaro insha Allah hay halkan ka imaada garanaya halkan socdaan garanaya socdaal sidoo kale waxaan garanaya socdaal 100 kiilo ku dhaweedo waxa kaaga dhinaa wax marka dadka hadana socdaal hadana waxyaabaha la yaab kale ma taqaanaa marka rabto inaad calool iska jarto ama aad miisaanka iska rido YouTube ka saa ugu dhafarto waa lagu wala kuwa ku leeyahay bariiska cunid kuwa ku leeyahay baasto isku mid ka sano coach macallin isku sheega ya qof walba macallin isku sheega 100 talo ku siinay aan jirin talo aan jirin guriga ugu darna ma taqaanaa guriga ugu dar waxay tahay cuntadan dhaaf iyo waxaan dhaaf lagu leeyahay waxba cunin qaar adiga oo guriga jooga calooshaada iska jar waa lagu ugu dar qof gurigiisa jooga soo caloos iska jiri kara ma jiri karo qof aan dhaqaaqin aan soconaynin macnaha guriga marka joogto energy aad bixinayso waa la yaqaanaa hal iyo laba xitaa si kastood guriga u dhacal mitayso ma wax go'aya ma lahan marka been waaye gurigaada ku almide waxa la rabaa inaad soo dhaqaaqdo go'aan aad qaadato sidoo kale aad samayso dadaal aad iyo aad badan marka socdaal marka waa dadaalina dadaalku waan wadeena that is very very critical all the time